warbixintan waa warbixin aynu ku eegayno xaaladihii ugu dambeeyay kiiskii Ikraan Tahliil iyo xurguftii u dhaxaysay Mahad Salaad iyo Fahad Yaasiin Hagaag. warar hoose oo secret ah ayaa sheegaya in agaasimaha hay'adda sirdoonka Soomaaliyeed oo magaceeda loo soo gaabsho NISA Mahad Salaad uu xiriir la sameeyay sirdoonada dalal dhowr ah, dalalkaasi oo ay ka mid yihiin Qatar, Turkiga, Itoobiya, Mareykanka iyo Kenya. sida xogta aan ka soo xiganay xog soo dusyaha wuxuu inoo sheegay ama inoo xaqiijiyay in wadamada qaar ay ku gacan sareen inay kala shaqeeyaan soo qabashada Fahad Yaasiin, isagoo markaa u sheegay ama ku eedeynaya Fahad inuu yahay eedeysane lagu tuhumayo dambiyo badan, isla markaana galdacwadeed ay kaga furan tahay maxkamadda Soomaaliya. balse dowladda Qatar ayaa noqotay dowladii ugu horeysay oo ku gacan saartay dalabka ka yimid agaasimaha NISA ee Mahad Salaad, ayagoo markaa ku yiri haddii aad doonaysaan in aan wada shaqeyn dhex marto noo fuliya danaheena aan idiin soo gudbinay. danaha marka ay ka wada hadlayeen ma ahayn mid markaa meesha lagu xusay, waa macquul inay tahay mid ahayd arrimo hore oo ay ka wada hadleen. ugu dambeyntiina Mahad Salaad uu ku yiri waan ka soo fikirayaa. xogta kale ee aan heleynay markaa waxay sheegaysay in Itoobiya ay u muujisay kalsooni, ayagoo markaa u ballan qaaday inay kala shaqeyn doonaan sidii ay gacanta u soo geli lahaa Fahad Yaasiin. Mahad Salaad ugu horeyntii markii loo magacaabay waxa uu bilaabay ugaarsiga Fahad iyo inta ku hoos nooleed, isagoo markaa nadiifiyay hay'adda NISA haraadigii ay uga tageen tiimkii isaga ka horeeyay, walow qaar ka mid ah ay xiran yihiin hadda. Mahad Salaad waxaan oo dhan waxa uu sameynayaa waxa ay tahay cabsi uu qabo, cabsida oo ah mid amni iyo mid sireedba inay waxyeelo uga soo gaarto dadkii la shaqeyn jiray Fahad Yaasiin. si la mid ah Mahad Salaad wuxuu aad u adkeeyay baraha amniga NISA, isagoo markaa bedelay wax walba oo quseeya amniga NISA. Mahad Salaad agaasimaha NISA wuxuu cadaawad hor leh ka sii qaaday hadal ama wareysi uu dhawaan uu bixiyay Fahad Yaasiin, kaasoo ku sheegay in Mahad Salaad ay wada shaqeyn leeyihiin Al-Shabaab. si la mid ahna eedii isaga loo haystay waa kiiskii Ikraan Tahliil ee dusha uu ka saaray Mahad Salaad, waana midda keentay in baadigoob u galo soo qabashada Fahad, isagoo doonaya wax walba inuu sida ay tahay ugu cadeeyo ummadda Soomaaliyeed. Mahad Salaad ayaa markii hore hamigiisa ahaa wasiir, balse wuxuu hay'adda NISA ka dhex arkay inay tahay meesha kaliya ku cadkoosan karo, isla markaana cadowgiisa mid u ugaarsan karo. su-aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay Mahad Salaad ma soo qaban doonaa Fahad mise waa uu ku guuldareysan doonaa mishikiisa. NTN TV